بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is a monetary policy. si aan u fahanno qeexidda monetary policy waxaad lifaaqa hoose ka dhagaysataa marka hore saddexda aaladood ee bangiga dhexe ee waddanka u adeegsado si uu u xakameeyo lacagta ku wareegaysa suuqa iyo dulsaarka. 1. Reserve requirement. 2. Open market operations. 3. Discount rate. hadda koor ayaan ka soo hadalnay saddexdooda waxaadna ka heli kartaa lifaaq hoose. bangiga dhexe ee waddanka waxa uu adeegsadaa nidaamka loo yaqaano monetary policy si uu u xakameeyo dulsaarka iyo lacagta ku wareegaysa suuqa si uu sare ugu qaado shaqaalaysiinta sidoo kalena uu u horumariyo dhaqaalaha waddanka. nidaamka monetary policy waxa uu adeegsadaa labadan qaab si uu u xakameeyo dulsaarka iyo lacagta taala suuqa, expansionary ama contraction policy. haddaan ku hormarno expansionary monetary policy, tilaabadan waxa uu bangiga dhexe u qaadaa si uu u kordhiyo lacagta ku wareegaysa suuqa dhaqaalahana uu sare u kaco oo loo gaaro kobac dhaqaale iyo shaqaalaysiin. waxaana bangiga dhexe u adeegsadaa marka la rabo inuu waddanka gaaro kobac dhaqaale. haddaba si middaa loo hirgeliyo bangiga dhexe waxa uu adeegsan karaa saddexdan aaladood midkood kuwaasoo ah reserve requirement, open market operations ama discount rate, khaasatan qaybtooda expansionary si ay maalgashatada u sameeyaan mashaariic cusub sarena loogu qaado shaqaalaysiinta iyo dhaqaalaha waddanka. haddaan markana ka hadalno qaybta labaad oo ah contraction monetary policy oo waxa ay liddi ku tahay midii hore, tilaabadan waxa uu bangiga dhexe u qaadaa si loo yareeyo lacagta ku wareegaysa suuqa. waxaana bangiga dhexe u adeegsadaa marka la rabo in laga hortago sicir bararka. haddaba si middaa loo hirgeliyo bangiga dhexe waxa uu adeegsan karaa saddexdan aaladood midkood kuwaas oo ah reserve requirement, open market operations ama discount rate, khaasatan qaybtooda contraction. sidoo kale middaas ayaa keenaysa in lacagta ku wareegaysa suuqa ay yaraato dhaqaalaha waddankana hoos ayuu u dhacayaa. dowladdan waxa ay tilaabada u qaadaysaa si ay u yarayso sicir bararka ka jira waddanka. xog dheeraada oo ku saabsan bangiga dhexe, reserve requirement, open market operations, discount rate, commercial bank, fadlan ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabi idmo.